xaalad kacsanaan ah ayaa laga soo warinayaa magaalada Bahardar ee xarunta ismaamulka Amxaarada ee Itoobiya kadib dagaalo qaraar oo shalay ilaa saaka ku dhaxmaraya ciidamada maamulka Addis Ababa iyo sidoo kale jabhadda Fano sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah. Jabhadda ayaa inta badan la wareegtay magaalada Bahardar mana jiro wax dhaqdhaqaaq dadweyne ah oo saaka ka jira halkaasi. Shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines ayaa baajisay dhammaan duulimaadyadii ay ku tagi lahayd Bahardar kadib markii ciidamada maamulka Abiy laga faramuujiyay magaaladaasi. inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada khasaaraha nafeed ee dagaalka ka socda halkaasi, haddana ilo war ogaal ah ayaa sheegaya in ku dhawaad 20 ka mid ah ciidamada maamulka Addis Ababa lagu dilay dagaalka. guuldarooyinka isdaba joogga ah ee ay la kulmayaan ciidamada maamulka Abiy ayaa tusaale u noqonaya hogaamin xumada Abiy Ahmed, taas oo sida qobarada gobolka ay aaminsan yihiin keeni karta burburka Itoobiya. Magaalooyinka iyo deegaanada ku dhow Bahardar ayaa waxa ku sii fidaya dagaalka, waxaana ka mid ah waqooyiga gobolkaasi. Meelaha dagaaladu ay ku sii fidayaan ayaa kala ah Gondor, Shoji iyo Walo iyo kuwo kale oo ka mid ah waqooyiga gobolkaasi. Maamulka Abiy Ahmed ayaa hadda isku dayaya inay iska caabiyaan arbaaxada kulul ee ku dhufteen jabhadda Fano, waxaana ay ciidamo ka soo ururinayaan deegaanada Benshangul oo dhaca waqooyiga galbeed ee dalka Itoobiya. Isku daygaasi waxa uu muuqanayaa mid aan xilligan waaqici ahayn maadaama gobolka intiisa badan hore looga saaray maamulka Abiy. Khamiistii kulan Addis Ababa ku dhaxmaray kooxda maamulka Amxaarada iyo sidoo kale kuwa federaalku waxay muujiyeen inay jeclaan lahaayeen in jabhaddu ay ka aqbasho wada hadallo dhexmara.